markana waa dhinacii ciyaaraha goordhow ciyaartii Super Bowl-ka ayaa soo gabagabooday waxaa qadka telefoonka ee Minnesota si toos ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascade haye Mascade ciyaartu waa soo gabagabooday bal natiijadii ugu dambeeyay nooga waran ciyaarta Falastiin aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaa la oran karaa ciyaartani waxay ahayd ciyaartii ugu xiisaha badnayd ee Super Bowl-ka ee in muddo la daawado labada kooxood ee New England Patriots iyo Philadelphia Eagles waxay soo bandhigeen banooni qurux badan oo weerar iyo weerar celis ah isla markaasina cidina ma ogeyn cidda badinaysa ilaa iyo inta ciyaartu ka soo gabagaboobay kooxda New England Patriots oo koobkan difaacanaysa isla markaasina Tom Brady oo ninka kubadda u qaybiyo uu haysto 5 koob ayaa waxa leeyahay Falastiin kii lixaad buu sanadkan qaadi lahaa oo waa uu guuleysan lahaa isla markaasina Michael Jordan-ka basketball-ka kor la mid noqon lahaa arintaas ay aad looga hadalhayay ciyaarta ka hor laakiin Philadelphia Eagles oo ka dhaawacmay ninka banooniga u qaybiyay quarterback ee sanadkan ku shaqaysanayeen ayaa saddexdii kulan ugu dambeysay ciyaaraysay waxa ay ku socotay quarterback-gooda Nick Foles oo isagu habeenkii xalay ahaa noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan kulanka oo la siiyay abaalmarinta loo yaqaano MVP-ga waxayna ku soo gabagabowday 33 iyo 41 dhibcood oo kooxda Philadelphia Eagles ay ku badisay waadigii sambuuska ka sheekeynayay taageerayaasha Philadelphia sambuuskii la siiyay waxaan u maleynayaa kooxdii gaarayo farxad iyo damaashaad bay ka qaadeen sida ayayna ku badiyeen magaalada Minneapolis haatan dadku meel ay kala maraan male aad baa loo buuxaa isla markaasina farxadda iyo damaashaadka Soomaalidu xataa Falastiin dhinac uga jirta ka waran bal adiga meesha aad ku daawanaysay mar baan ku soo wacay iyadoo qaylada iyo waxa ka yeeraya la yaabo codkii waxaan u maleynayaa taageerayaasha xataa inay ka fahmayaan sidaan u xabeebsanahay waayo lafteedu waxaan kamid ahaa dadkii ka soo horjeeday New England Patriots waayo koobkan waxaa loo kala qaybiyaa NFC AFC kooxda gobolkeena ee Minnesota walow ay Eagles naga soo badisay haddana isku group aan ka nimaanayo NFC baan isla nahay marka meeshii aan ku daawanayay Soomaalida u badneed dabcan wixii daawanayay cadaan baa nala joogay laftooda dhammaantood laba qof mooyaane inta kale waxay taageersanayeen kooxda kubadda American football-ka loo yaqaano si aan kubadda cagta u dhaxataa garan mayo waayo kubadda cagmaha laakiin Mareykanka kubadda cagta Mareykanka yiraahdaan marka waxaad moodaa in dadku inta badan Eagles ay taageerayeen oo halka xafiltan AFC NFC oo ka jiro dabcan New Englandna sideedaba kooxo markay koob badan ku guuleystaan waxay noqdaan in dadku ay ka soo horjeestaan oo kooxaha underdog loo yaqaano ama tabarta daran ayaa la taageeray marka kooxda Philadelphia Eagles waxay ahayd koox dabcan aad iyo aad cajiib ah sidii koobkan u guuleysatay Soomaaliduna qaarna garoonkayba ka shaqeynay gudahooda ku jireen oo snapchat-yada iyo baraha bulshada soo tweet gareen bayaan ka daawanaynay halka guri kasta oo Soomaaliyeed habeenkii xalay ahaa gobolka Minnesota ciyaartaasi lagu daawanay marka la fiiriyo taariikh ahaan kooxdan Eagles horey ma ugu guuleysato koobka والله فلسطين كوحدان إيجلس هراء كوب كان وجماعة ونقوليسين ومركي وهو الرئيس كوب كان قوليسين يسو قبل كي كديسين بنزلفانيا كوحدة ستيلرز اللي هذا أيام مدفرة بدن كوب نقوليسين تقولت المهم كوحة وجوانا كسندل كينيين لكن إيجلس هذا كهر مدة سنة كي لبده كون يافر تي عيارتك ما دام بيستا وإني إيجلس كهري مادين ولا قبل يجي أني إيجلس بقبل سيتيل أول سنين اللي هذا وبرجع حدينها هو نفس المريخ كم هو عياري بكرة وعناه ونمن كبنوني قبتها أمر الله باسه لكن واحد مودا إن أي كأرستي إيجلس سنة كان كوحدة نيو إنجلاند باتريوتس ويدو سنة كي هذا الصوت في كوب كان عجيبة وقعد كوحدة فالكنس ولا بعتني شندي بعض يدو لقص الرأي وكتمت لكن كلن كي حلا وحلا ورن كرا كي وانا سنة مدوي كان العيارة إنوها إن مسعد وحيابها أي عيارتني عنك كنتها وحاكم ذا دنع حيسين ذا إيو هسه دحتالك إن هسه طبعا وانو أرقني إن دينا إيه هي كله واسد دقالها كوب حيو كله مركل الثيري فلسطين هرتا إيه ده هذا عجيبة إن صدم سكن تلفزيون هذا عيارة الصبح أنت سعته كمبنية ده مشركة ده هواوين كيف سدان سلام مركزنا صدق كاسكن لجوب جديو فرينت وجوم مهم سن كمبنية مركز حيسين يا مشركة حيسين يستقطوا إني ضدك داوانية ولو قياس عيارتاس إني داودان إلى يبقول يطبن يكون مليون ودنيا ده على ذلك داوانية مركز فرصة ذاتي waxay keentaa in lacag fara badan lagu kala gato tusaale ahaan soddonka ilbriqsi waxaa lagu iibsadaa ugu yaraan 5 milyan oo dollarka Mareykanka waad dareemi kartaa marka qiimaha ay leedahay sida lagu gagartamayo intahaasi wax daawanaya in laga faa'iideysto dhaqaalaha marka
telefishinaduna maadaama ay taageerayaasha faraha badan ee millionska ay daawanayaan sidaa bay lacagtaa qaali uga dhigaan oo ay mataqaanaa shirkadaha uga iibiyaan. waxaa kaloo lagu tartamaa soo bandhigista xayeysiin soo jiidasho leh oo indhaha qabanaysa. iyada lafteeda xayeysiimaha ayaa tartan loo dhigaa oo berito maanta oo kale marka ay waddanka Maraykanka waagu u bariyo baa telefishinadu ka waramaan tii guulaysatay xayeysiintii ugu wanaagsaneed ee lasoo bandhigay. waa mahadsantahay. dabcan fariimana waa lagu soo gudbinayay warbixinada idnaa iyo idaacadaheena soo socda ayaad kaga bogan doontaan wixii ciyaarahaasi warar ay ku soo kordha. aad aa u mahadsantahay maxamuud mascade.